waa maasanta walaalow salaam calaykum dhammaan bahda saxaafaddaba gaar ahaan dalsan TV marka hore waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan shacabkii Soomaaliyeed wax ku noqday halkan inta dhimatana Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa jannatul firdaws inuu ka waraabiyo inta dhaawacana Ilaahay uu siiyo caafimaad degdeg ah intaas kadib dabcan waxa halka ka dhacay waxay ahaan dhibaatooyinkii dalka ka dhacayay wax la mid ah oo ay had iyo jeer qolyahan nabadiidka ah ee ku fikira ama had iyo jeer ka shaqeeya gumaadka shacabka Soomaaliyeed oo qolo oo jid iyo jahadiida oo aan dadkan Soomaaliyeed nabad iyo deganaansho aan u rabin oo asalkooduba ah dad noloshoodu ku xidhan tahay inay ku noolaadaan meel mugdiya burbursan colaadi ka jirto gaajo ka jirto ahdaaftoda iyo aragtiyahooduba waxaasay ku beesgaraysan tahay inay ku noolaadaan marka waxay wax u dhaceen sidaan soo socota adiga galabkii xilli aan qiyaasay inay tahay 5:40 daqiiqo meelahaas ayaa waxaa dhacay qarax aad u weyn oo aragteen albaabka ay ku soo dhifteen gaari kadibna waxaa soo galay maleeshiyaadkii waxaa muddo ay dirirayeen maxaa la dhahaa askartii ilaalada ka ahayd hoteelka adiga ugu dambeyntii dhowr qofoodna waa ku dhimatay halkan Allah u naxariisto dhowr qofoodna waa ku dhaawacantay xilligaas anagu waxaan ku sugnaa hoteelka gudihiisa ku sugnaa aniga iyo rag kale oo odayaal ahaan halkan wada joognay adiga alxamdulillah waa saacado badan halkan wada joognay waxaan ku dadaalaynay oo aad ula tacaalaynay in dhibaatadooda la yareeyo in dadkii halkan ku jiray ee shacabka ahaa la badbaadiyo waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga qaybahooda kala duwan oo runtii muddo aad u kooban ugu soo gaaray dadaal aad u wanaagsanna muujiyey suurto geliyeen in ay caruurtii la soo qalday ee kooxaha nabadiidka odayada waaweyn oo cululaha waaweyn ee caruurtoodii Pakistan iyo Malaysia iyo Yurub meelo ka mid ah intuu dirsaday ay wax u baranayaan oo iyaga dakaatire biri iimaanay caruurta yaryar ee masaakiinta ah hadda aragto muuqaalkooda waxaad is leedahay sadaqa ku kacday soo egyihiin yani caruurta la soo diray yani baahida ka muuqata dad aragto yaabaysa halka aan wada ogsoonahay nimanka soo diray sidii u egyihiin caruurtooda soo egyihiin oo wada garanayna caruur aad u yaryar oo waxay ahaayeen runtii aad is leedahay kuwan waa sadaqa ku kacday dad aragto muuqaalkooda yani duruufta ka muuqata iyo yani nolosha iyo duruufta ay ku nool yihiin dad aragto aad uga naxaysay ahaayeen laakiin la qalday aad loo qalday waa nasiib darro waana on rajaynayaa in ay iska dhammaan doonto aragtidaas aadka u qalabsanay carruurta Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waxay ila tahay in ayna sax ahayn dhowr iyo 10 sano ayay kooxahan aragtida xag jirka ah leh ayay beerayeen dhalinyaro badan oo sidaas oo kale ah in badan oo kamida mararka qaar markay muddo ku jiraanba waa ka baxaan ama waa dhintaan ama waa dhaawacmaan dhibaato ku dhacdo laakiin ama sidaan oo kale ay naftooda u haligaanba laakiin waxay ku dadaalaan inay kuwa kale helaan oo saas oo kale ay u beeraan waxaan ka maqalnaa guud ahaan meelaha qaar in ay cabsigelin aad u ballaaran ku hayaan oo ay dhahaan madax furasho wax u eg yani lacagaad bixinaysa haddii kale oo ku qarxinayna aniga Cabdullaahi aan ahay haddii aan ogahay every single day inay qarxinayaan ma dhacaysa yani inta noolaha inaan wan si galbanaysiyo dad badan oo ila soo hadlo waxay leeyihiin warniyo nimanka waxa la sii jiray ma waxa la sheegayay adigu maxaa la waxa aqli darro ah ama ma garanaysaa duruuf kasta ha ka lifto aniga intaan lacag bixiyo dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsanay magaaladan jooga lagu dili lahaa inaan anigu dhintaan ka doorbidaya dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed dadka shacabka ama ganacsatada Soomaaliyeed anigu ma hubo aragtidaas inay jirto aragti aan hubo ma ahan laakiin lacag haday jirto waxaan rabaa in uu qofku isbarbar dhigo war inaad qof shacab ah oo maskiin ah waxba galabsan maalin Ilaahay geliyo dilkiisa ka qayb qaado al-shabaab maxay ku qabtaan lacagta qaataan qaraxay ku sameystaan ciyaalkan oo kale ku qaldaan maalin Ilaahay geliyo waxay u taagayeen marka islaameen dad muslim ah oo shacab ah oo Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan صح معها مركي أنا ما لا يقول لك كيف تقف مسلم إن الدشاء تقول نورات نلاش عشان نلا صح معها نلا حلال معها. حلي قرح ودعي جودها هوتيل كانت قصة هذا أديم ركلا ومسلمين إنه كل جودين محا السعودي هوتيل كم عادي بدون جوتين مسي شرري وحبها لكن بالسعودي. ما يقول أنا هو حلي جاس
marka qaraxu dhaca kadib aan dhowr qof oo mas-uuliyiin is helnay ama aan is aragnay oo aan meel isugu nimiday balse xilligaas keligay aan joogay howlo ani ii gaar ahaan meel gaara ku haysta kolkuu qaraxu dhacay aan dibadda u soo baxay waxaan arkay rag odayaal ah oo adiga mas-uuliyiin oo saas oo kale aan is aragnay adiga waan isla jaan qaadnay waxaan ku talagalnay inaan annagu nafteenna ka badbaadino dadkii shacabka ah ee meeshaan ku jirana ka badbaadino cadowgaas kaliya kuma fikir inaan annagu aan nafteenna ka badbaadino aan ka baqno meesha waan bixi karnay dadkii ugu horreeyay baxaan ka mid ahaan karna laakiin maana bixin muddo 2 saacadood halkaan aan ku jirnay iyo xoogaa ayaan ku jirnay waa dareemayna runtii riskiga iyo waxa ay lahayd laakiin haddana waxaan dareemaynay in mas-uuliyad naga saaranto dad fara badan oo shacabaa ku jiray ilaa markay ciidamadii noo yimaadeen ay dhaheen operationkan ma sii wadayno haddaadan bixin adun way nagu qasbaan inaan meesha ka baxno mooye ma markay noo yimaadeen askar fiican noo timaadeen maba dareemayn bu wax haba yaraatee khatara ma dareemayn laakiin waxaa insisti gareeyey oo ku adkaystay sargaalkii watay ciidankiina soo gaaray xilligaas inaan baxno wuxuu dhahay intaan ka badan operationka wadi maayo haddaada bixina wuxuu naga codsaday oo nagu adkeeyey inaan baxno saas darteed aan u baxno marka warar baa sheegaya in mas-uuliyiintii adigu aad ka mid ahayd iyo dadkii kale ee hoteelka gudihiisa ku jiray ay qol proof ah oo gudaha hoteelka ku yaalla ay galeen ma jiraan wararkaas ha walaal waxaa jiray albaab oo markii hore loogu talagalo albaabadan la yidhahdo security doorskaa jiray albaabkii aan xidhanay albaabka iskamaanan xiran laakiin waa la soconnay ayaga dhaqdhaqaaqooda iyo dad hoteelka ka tirsan ama customer hadday yimaadaan intaba waa ka furayn dhowr qofoodaa soo istaagto waa ka furnay markii ugu dambaysa ayagaa yimaada marka albaabka waxay isku dayay inay soo galaan soo jebiyaan umayan suurtagelin waana ogeyn inayan kari karayn oo meel lagu sii talagalay ahayd ilaaha nagu ammaansaday oo dee uun dadaalkaas nagu jiray laakiin allah subxana watacala nuga mahad celinaynaa annaga intii kale nala joogtaba waxaan markaa kadib aan ka shaqaynaynay inaan xiriirino ciidamadii amniga ee kala duwanaa inayan ayaguna shacabkii meesha ku jirana dhibaato u geysan ayaga dhexdooda wax ka dhaceen marka waxaan xiriirinaynay hay'adihii amniga meesha ka shaqaynayay oo howlgalka ku wada jiray ugu dambeyntiina waxaa noo suurta gashay inayna soo gaaraan noo yimaadaan oona isku meel nimaadaba ciidamadii yimid baad ii sheegtay in ay idinka idinka soo bixiyeen meesha sidee ku suura gashay iyadoo raggii dagaalamayey ee weerarka soo qaaday ay albaabkeeda ku soo garaaceen in aad baxdaan waxay ahaayeen ciidamadana soo gaaray ciidamo u tababaran howlahaas oo runtii dee ka mida heedaha amniga ee dowladda waa u tababarnaayeen waxaad dareemi kartaa dabaqa shanaaday noogu yimaadeen ayagoo aan jaranjartii soo marin oo jaranjartii ay cadowga ku jiraan ayay dabaqa shanaad noogu yimaadeen si nabadgelyahay noogu yimaadeen markii horeba annagoo aan hadda waa dabcan haddii cadow meesha kugula jiro oo isqarxinayo qori wata waa dareemaysaayo dee hadda cabsi la'aani ma jirto qof yacni doonaya naftii halliga ah inuu bilding kugula jiro waa dareemi kartaa laakiin haddana kama cararin ama gidaarada kama boodinoo derbiga iskama tuurin waxaan ku fikirnay inay jiri karto qaab kale oo aan ciidamadina ku xiriiri karno nafteenna aan ku dadaali karno inaan ku badbaadino dadka shacabka ayna la joogana aan isku dayi karno inaan badbaadino ciidamada u tababaran aan noo yimaaday oo runtii nin sargaal aho oo xiriir ila soo sameeyey oo aan inta waddada kusoo jiraba aan soo xiriirayno oo watay si nabadgelyahay noogu yimaadeen waana uun hawshii ayagaa la wareegay iyadoo saacado badanna ma qaadan kolkii aan baxnay oo aan meesha ka baxnay halkaan aan ka baxay gaari aan raacay gaarigii aan markii meeshaan ka raaco anoo weli saaranay isoo wargeleen hawshii inay dhammaatay marka waanu mahad celinaa runtii ciidamo geesiyaalaha ay ahaayeen ay ka muuqatay dhiiranaan iyo xirfad iyo marka ilaahay xafidaan leh waayahay waxaad ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee halabuurada ganacsi ee magaaladan ka hirgeliyey maxay fariintan weerarka ah ee hoteelkaaga shalay lagu soo qaaday ay yacni ku yeelanaysaa oo saameynaya ganacsiga iyo howlihi awoodda wallaahi dee horta dhowr qofoodaa igala dooday raggan saaxiibbana waxay dhihi jireen niyo maad waalan tahay waddamadan ammaanka ahee dariska ahee maad ku samaysatay investmentigan riskiyaad gelaysaa naftaada riski gelinaysaa hantidaada riski gelinaysaa laakiin waddan aan waddanka soomaaliya ahayn hal abaartimenti kuma lihi horta haddana iima qorshaysna inaan ku yeesho lacag fara badan aan ku maalgeliyey soomaaliya gaar ahaan 2018 19 iyo 20ba investment ballaaran aan ka sameeyey mana inay isii dhiiri geliso mooye wax haba yaraatee niyadjab ii keenaysa lama arka sababtu waxay tahay haddii aan maanta anigu ka taxaafudo ama aan ka cabsado dalkayga inaan maalgeliyo ee aan meelo kale u cararo at the end of the day horta dalaan dalkaan ahayn malihi
dhalinyaradii halkan joogtee shaqo abuurka loo samayn lahaa haddaanan annagu shaqo u abuurin oo aynan helin fursad ay ku shaqaystaan markay helaan fursad ay ku shaqaystaan waxay helayaan fursad ay wax ku bartaan hadday intaa waayaan fursadda ay haystaan waxa waaye ayagaa un wixii waxaan imaanaynaa marka wada maxaa la dhahaa noocaas oo kala noqday oo dhibaatada dadkan dalkan uu ka shaqaynaya sideedana nimankan dadka qaldaya marka ay qaldayaan waxay kaga faa'iidaysanayaan duruufaha yaryar ee haysta dhalinyarada tusaale ahaan qofkii waxaa laga yaabaa inuu reer leeyahay carruur leeyahay guri kira ku jiro kan ku jiro waxna aan soo gelayn marka waxaa leeyahay kaa lacag yara lagu siinaa lacagtaas yara la soo gelina xaradii la geynaa kadib maskaxda laga dhaqa qofkii waxaa ku imaanaya marka indhaha un kaa fiirinayo sida noocaas oo kale ahoo ishaligii si gaara hoteelkan hadda elite ee aan joogno qaraxuna ka dhacay imisaad ku qarash garaysay oo yani walaal lacag dhowr milyan oo dollar aan ku qarash gareeyey haddana waxaan diyaar u ahay inaan haddii allah wadali ka raali noqdo wixii yar yaraa ay ka hadleeyeen maalmo gudahood ku hagaajiyo 2-3 cisho kadibna wuu furnaanaya haddana waa kaasoo korontidiisi waa shidan yihiin biyihiisi waa shidan yihiin bisun waxaan ku talagalnaa inta waxyaabihii yaryar ah oo garaafooyinkii gaaray laga yara hagaajinayo 2-3 cishayna noqonayaan kadibna sidiisu u shaqeyn dhalinyaradii ka shaqeynaysa soo shaqa tagayaan wax dhibaato oo jira ma jiraan khasaaraha hantiyadeed ee hoteelka gaaray ma tiri kortay walaal wuu jiraa laakiin waxaa iiga muhiimsan khasaaraha nafeed iyo midka kale soo gaaray ama dadkii ka shaqaynaya halkan ama dadkii kastamarka u ahaa oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac marka taa hadda khasaaro maaliyadeed wax weyn oo hadda muhiimad saasa iima lahan waxaa muhiim ii ah dad runtii aan aad u jecelahay oo ama ka mid ahaa dadkii ka shaqaynayay hoteelka ama dadkii macaamilka ahaa ayaa wax ku gaareen intaas unbaa xanuun fara badan nagu haysa laakiin haddana dhihi mayno leyrkaan diminayna hoteelkaan xiraynaa hoteelo badan oo kalena sanada soo socda waa ka dhisaa muqdisho insha allah haddii alla idin waayahay khasaaraha guud adigoo isku daraya dadkii macaamiisha ahaa ee halkan dhimashada iyo dhaawaca ku noqday iyo dadka ka shaqaynayaba intuu gaaraya walaal horta dee warbixintaasoo saxa waxaa haya hay-adaha amniga oo ku shaqada lahaa waxaa dhici karta intaan hoteelka gudihiisa ku aragnay inaan hayno ama laamiga ku dhimatay ama xabada meelo kale isaga dhaceen marka warbixintaasoo saxa xoogaa ma raba inaan u yara gacan dhaafo hay-adaha amniga marka hay-adaha amniga laga heli doonaa ayaga shacabka la wadaagi doona haddii allah wadal ka raali ugu dambayntii fariintan maxaad ka baranaysaan marka hadday aan lahayd ammaanka hoteelka iyo isbedelada aad samaynaysaan wallahi dee horta dhacdo kaste nagu dhacda natiijada ka dhalatana aynan ahaan inaan nolosheenna ku weyno adeegun baan ka sii qaadaynaa marna nama cabsi gelinayso mana baqdin iyo niyad jab iyo toona nagu abuuri mayso anigu waxaan ka fikiri jiray oon wakhtigayga intiisa badan geli jiray sidii dhaqaalaha dalkan loo kobci lahaa sidii dhallinyarada dalkan joogta shaqo abuur loogu samayn lahaa sidii fursadaha ama fursadaha ganacsiga aadka u ballaaran ee ka jira looga faa'iidaysan lahaa laakiin wixii shala dhacay waxay igu dhalisay inaanan daraasad ku samayn keliya sidii dhaqaalaha dalkan lagu kobci lahaa sidii fursado shaqa lagu abuuri lahaa laakiin waxaan ku dari doonaa aragtiyahayga ama daraasaadkii aan samayn jiray aan ku soo kordhi doonaa carruurtan qolada qaldaysa sidii looga qaban lahaa carruurtan cagacaddaha ee qoriga ah ka hawadatay ee dhowr iyo 10 sano ummaddan dadkan u afduubnaayeen sidii xal loogu heli lahaa waa dhici kartaa inaan xalka ugu habboon ounan ahayn in uun xabad kaliya lagu xalliyo oo carruurtan ma garanaysaa naftooda la dhaafiyey yani xuluul kale inay jiri kartaa laga yaaba si kasta ha ahaatee konsaynkaas amni darrada dalka waa dareemi jiray waana qabi jiray laakiin oo mar walba wuu jiray layskama xaqiri yani ma dafari kartid yani waaqacaad ku nooshahay waa ku qasban tahay inaad recognize garaysood aqbasho waaqacaad ku nooshahay laakiin wax badan daraasad hore uguma samayn sidii duruufaha amniya dalkan ka jira xal loogu heli lahaa laakiin waxaan geli doonaa wakhtiga aan geliyey horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka wakhtiga aan geliyey wakhti lamid ahaan geli doonaa haddii allah awoodalay ka raali noqdo daraasaadna waan ka samayn doonaa sidii arrintaas xal waara loogu heli lahaa haddii allah awoodalay ka raali noqdo
waa maasanta walaalow salaam calaykum dhammaan bahda saxaafaddaba gaar ahaan dalsan TV. Marka hore waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan shacabkii Soomaaliyeed wax ku noqday halkan. Inta dhimatana Allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa jannatul firdaws inuu ka waraabiyo, inta dhaawacana Ilaahay uu siiyo caafimaad degdeg ah. Intaas kadib dabcan waxa halka ka dhacay waxay ahaan dhibaatooyinkii dalka ka dhacayay wax la mid ah oo ay had iyo jeer qolyahan nabadiidka ah ee ku fikira ama had iyo jeer ka shaqeeya gumaadka shacabka Soomaaliyeed oo qolo uun jid iyo jahadiida oo aan dadkan Soomaaliyeed nabad iyo deganaansho aan u rabin oo asalkooduba ah dad noloshoodu ku xidhan tahay inay ku noolaadaan meel mugdiya burbursan colaadi ka jirto gaajo ka jirto ahdaaftoda iyo aragtiyahooduba waxaasay ku beesgaraysan tahay inay ku noolaadaan. Marka waxay wax u dhaceen sidaan soo socota adiga galabkii xilli aan qiyaasay inay tahay 5:40 meelahaas ayaa waxaa dhacay qarax aad u weyn oo aragteen albaabka ay ku soo dhifteen gaari kadibna waxaa soo galay maleeshiyaadkii waxaa muddo ay dirirayeen maxaa la dhahaa askartii ilaalada ka ahayd hoteelka adiga ugu dambeyntii dhowr qofoodna waa ku dhimatay halkan Allah u naxariisto dhowr qofoodna waa ku dhaawacantay. Xilligaas anagu waxaan ku sugnaa hoteelka gudihiisa ku sugnaa aniga iyo rag kale oo odayaal ahaan halkan wada joognay. Adiga alxamdulillah waa saacado badan halkan wada joognay waxaan ku dadaalaynay oo aad ula tacaalaynay in dhibaatadooda la yareeyo in dadkii halkan ku jiray ee shacabka ahaa la badbaadiyo. waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga qaybahooda kala duwan oo runtii muddo aad u kooban nagu soo gaaray dadaal aad u wanaagsanna muujiyey suurto geliyeen in ay caruurtii la soo qalday ee kooxaha nabadiidka odayada waaweyn oo cululaha waaweyn ee caruurtoodii Pakistan iyo Malaysia iyo Yurub meelo ka mid ah intuu dirsaday ay wax ugu baranayaan oo iyaga dakaatire bir iimaanay caruurta yaryar ee masaakiinta ah hadda aragto muuqaalkooda waxaad is leedahay sadaqa ku kacday soo ogyihiin yani caruurta la soo diray yani baahida ka muuqata dad aragto wada yaabaysa halka aan wada ogsoonahay nimanka soo diray sidii u ogyihiin caruurtooda soo ogyihiin oo wada garanayna caruur aad u yaryar oo waxay ahaayeen runtii dee aad is leedahay kuwan waa sadaqa ku kacday dad aragto muuqaalkooda yani duruufta ka muuqata iyo yani nolosha iyo duruufta ay ku nool yihiin dad aragto aad uga naxaysay ahaayeen laakiin la qalday aad loo qalday waa nasiib darro waana un rajaynayaa in ay iska dhammaan doonto aragtidaas aadka u qalafsanay carruurta Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waxay ila tahay in aynan sax ahayn dhowr iyo 10 sano ayay kooxahan aragtida xag jirka ah leh ayay beerayeen dhalinyaro badan oo sidaas oo kale ah in badan oo kamid ah mararka qaar markay muddo ku jiraanba waa ka baxaan ama waa dhintaan ama waa dhaawacmaan dhibaata ku dhacdo laakiin ama sidaan oo kale ay naftooda u haligaanba laakiin waxay ku dadaalaan inay kuwa kale helaan oo saas oo kale ay u beeraan waxaan un ka maqalnaa guud ahaan meelaha qaar in ay cabsigelin aad u ballaaran ku hayaan oo ay dhahaan madax furasho wax u eg yani lacagaad bixinaysa haddii kale waan ku qarxinayna aniga Cabdullaahi aan ahay haddii aan ogahay every single day inay qarxinayaan ma dhacaysa yani inta noolaha inaan wan si galbanisiyo dad badan oo ila soo hadlo waxay leeyihiin warniyo de nimanka waxa la sii jiray ma waxa la sheegayay adigu maxaa la waxa aqli darro ah ama de ma garanaysaa duruuf kasta ha ka lifto aniga intaan lacag bixiyo dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsanay magaaladan jooga lagu dili lahaa inaan anigu dhintaan ka doorbidaya dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed dadka shacabka ama ganacsatada Soomaaliyeed anigu ma hubo aragtidaas inay jirto aragti aan hubo ma ahan laakiin lacag haday jirto waxaan rabaa in uu qofku isbarbar dhigo war inaad qof shacab oo maskiin oo waxba galabsan maalin Ilaahay geliyo dilkiisa ka qayb qaado al-shabaab maxay ku qabtaan lacagta qaataan qarxay ku sameystaan ciyaalkan oo kale ku qaldaan maalin Ilaahay geliyo wuxuu u taagay marka islaameen dad muslim oo shacab oo Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan صح معها مركي أنا ما لا يقول كي قيبة تقف مسلم إن هذا تقول نولات نولش عشان نول صح معها نول حلال معها. وين اللي قرح ودعي جودها هوتيل كان قصة هذا أديم ركلوا المسلمين إنه يكون جوبين مع السعودي هوتيل كان عادي بدون جوبتين مسي شرعي وحبة حكين كسعودي. ما يقول أنا أقول حلي جاس
marka qaraxu dhaca kadib aan dhowr qof oo mas-uuliyiin is helnay ama aan is aragnay oo aan meel isugu nimiday balse xilligaas keligay aan joogay howlo ani ii gaar ahaan meel gaara ku haystay kolkuu qaraxu dhacay aan dibadda u soo baxay waxaan arkay rag odayaal ah oo adiga mas-uuliyiin oo saas oo kale aan is aragnay adiga waan isla jaan qaadnay waxaan ku talagalnay inaan annagu nafteena ka badbaadino dadkii shacabka ah ee meeshaan ku jirana ka badbaadino cadowgaas kaliya kuma fikir inaan annagu aan nafteena ka badbaadino aan ka baqno meesha waan bixi karnay dadkii ugu horreeyay baxaan ka mid ahaan karna laakiin maana bixin muddo 2 saacadood halkaan aan ku jirnay iyo xoogaa aan ku jirnay waa dareemayna runtii riskiga iyo waxa ay lahayd laakiin haddana waxaan dareemaynay in mas-uuliyad naga saaran dad fara badan oo shacabaa ku jiray ilaa markay ciidamadii noo yimaadeen ay dhaheen operationkan ma sii wadayno haddaadan bixin adu way nagu qasbaan inaan meesha ka baxno mooye markay noo yimaadeen askar fiican noo timaadeen maba dareemayn bu wax haba yaraatee khatara ma dareemayn laakiin waxaa insistigareeyey oo ku adkaystay sargaalkii watay ciidankiina soo gaaray xilligaas inaan baxno wuxuu dhahay intaan ka badan operationka wadi maayo haddaada bixina wuxuu naga codsaday oo nagu adkeeyey inaan baxno saas darteed aan u baxno marka warar baa sheegaya in mas-uuliyiintii adigu aad ka mid ahayd iyo dadkii kale ee hoteelka gudihiisa ku jiray ay qol proof ah oo gudaha hoteelka ku yaalla ay galeen ma jiraan wararkaas haa walaal waxaa jiray albaab oo markii hore loogu talagalo albaabadan la yidhahdo security doorskaa jiray albaabkii aan xidhanay albaabka iskamaanan xiran laakiin waa la soconnay ayaga dhaqdhaqaaqooda iyo dad hoteelka ka tirsan ama customer hadday yimaadaan intaba waa ka furayn dhowr qofoodaa soo istaagta waa ka furnay markii ugu dambaysa ayagaa yimaada marka albaabka waxay isku dayay inay soo galaan soo jebiyaan umayan suurtagelin waana ogeyn inayan kari karayn oo meel lagu sii talagalay ahayd ilaaha nagu ammaansaday oo dee uun dadaalkaas nagu jiray laakiin allah subxana wa tacala nuga mahad celinaynaa anaga intii kale nala joogtaba waxaan markaa kadib aan ka shaqaynaynay inaan xiriirino ciidamadii amniga ee kala duwanaa inayan ayaguna shacabkii meesha ku jirana dhibaato u geysan ayaga dhexdooda wax ka dhaceen marka waxaan xiriirinaynay hayadihii amniga meesha ka shaqaynayay oo howlgalka ku wada jiray ugu dambayntiina waxaa noo suurto gashay inayna soo gaaraan noo yimaadaan oona isku meel nimaadaba ciidamadii yimid baad ii sheegtay in ay idinka soo bixiyeen meesha sidee ku suura gashay iyadoo raggii dagaalamayey ee weerarka soo qaaday ay albaabkeeda ku soo garaaceen in aad baxdaan waxay ahaayeen ciidamadana soo gaaray ciidamo u tababaran howlahaas oo runtii dee ka mida heedaha amniga ee dowladda waa u tababarnaayeen waxaad dareemi kartaa dabaqa shanaaday noogu yimaadeen ayagoo aan jaranjarta soo marin oo jaranjarta ay cadowga ku jiraan ayay dabaqa shanaad noogu yimaadeen si nabadgelyahay noogu yimaadeen markii horeba annagoo aan hadda waa dabcan haddii cadow meesha kugula jiro oo isqarxinayo qori wata waa dareemaysaayo dee hadda cabsi la'aani ma jirto qof yacni doonaya naftii halliga ah inuu bilding kugula jiro waa dareemi kartaa laakiin haddana kama cararin ama gidaarada kama boodinoo derbiga iskama tuurin waxaan ku fikirnay inay jiri karto qaab kaloo aan ciidamadana ku xiriiri karno nafteenna aan ku dadaali karno inaan ku badbaadino dadka shacabka ayna la joogana aan isku dayi karno inaan badbaadino ciidamada u tababaranaa noo yimaaday oo runtii nin sargaal ahoo oo xiriir ila soo sameeyey oo aan inta waddada kusoo jiraba aan soo xiriirayno oo watay si nabadgelyahay noogu yimaadeen waana oon hawshii ayagaa la wareegay iyadoo saacado badanna ma qaadan kolkii aan baxnay oo aan meesha ka baxnay halkaan aan ka baxay gaari aan raacay gaarigii aan markii meeshaan ka raaco anoo weli saaranay isoo wargeleen hawshii inay dhammaatay marka waanu mahad celinaa runtii ciidamo geesiyaalaha ay ahaayeen ay ka muuqatay dhiiranaan iyo xirfad iyo marka ilaahay xafidaan leh waayahay waxaad ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee halabuurada ganacsi ee magaaladan ka hirgeliyey maxay fariintan weerarka ah ee hoteelkaaga shalay lagu soo qaaday ay yacni ku yeelanaysaa oo saameynaya ganacsiga iyo howlihi awooda wallaahi dee horta dhowr qofoodaa igala dooday raggaan saaxiibanaha waxay dhihi jireen niyo maad waalan tahay waddamadan ammaanka ah ee dariska ah ee maad ku samaysatay investmentigan riskiyaad gelaysaa naftaada riski gelinaysaa hantidaada riski gelinaysaa laakiin waddan aan waddanka soomaaliya ahayn hal abaartimenti kuma lihi horta haddana iima qorshaysna inaan ku yeesho lacag fara badan aan ku maalgeliyey soomaaliya gaar ahaan 2018 19 iyo 20ba investment ballaaran aan ka sameeyey mana inaan inay isii dhiiri geliso mooye wax haba yaraatee niyadjab ii keenaysa lama arka sababtu waxay tahay haddii aan maanta anigu ka taxaafudo ama aan ka cabsado dalkayga inaan maalgeliyo ee aan meelo kale u cararo at the end of the day horta dalaan dalkaan ahayn melihi
dhalinyaradii halkan joogtee shaqo abuurka loo samayn lahaa haddaanan annagu shaqo u abuurin oo aynan helin fursad ay ku shaqaystaan, markay helaan fursad ay ku shaqaystaan waxay helayaan fursad ay wax ku bartaan. hadday intaa waayaan fursadda ay haystaan waxa waaye ayagaa un wixii waxaan imaanaynaa marka wada maxaa la dhahaa noocaas oo kala noqday oo dhibaatada dadkan dalkan uu ka shaqaynaya. sideedana nimankan dadka qaldaya marka ay qaldayaan waxay kaga faa'iidaysanayaan duruufaha yaryar ee haysta dhalinyarada. tusaale ahaan qofkii waxaa laga yaabaa inuu reer leeyahay, carruur leeyahay, guri kira ku jiro, kan ku jiro waxna aan soo gelin. marka waxaa leeyahay kaa lacag yaraa lagu siinaa, lacagtaas yaraa la soo gelina, xaradeeda la geynaa, kadib maskaxda laga dhaqa. qofkii waxaa ku imaanaya marka indhaha un kaa fiirinayo sida noocaas oo kale ahoo ishaligii. si gaara hoteelkan hadda Elite aan joogno qaraxuna ka dhacay imisaad ku qarash garaysay oo yani walaal lacag dhowr milyan oo dollar aan ku qarash gareeyey. haddana waxaan diyaar u ahay inaan haddii allah wadali ka raali noqdo wixii yaryaraa ay ka hadleeyeen maalmo gudahood ku hagaajiyo. 2-3 cisho kadibna wuu furnaanaya. haddana waa kaasoo korontidiisu waa shidan yihiin, biyihiisu waa shidan yihiin. bisun waxaan ku talagalnay inta waxyaabihii yaryar oo garaafooyinkii gaaray laga yara hagaajinayo. 2-3 cishayna noqonayaan, kadibna sidiisu u shaqeyn dhalinyaradii ka shaqeynaysa waa soo shaqa tegayaan. wax dhibaato oo jira ma jiraan. khasaaraha hantiyadeed ee hoteelka gaaray ma tiri kortee? walaal wuu jiraa, laakiin waxaa iiga muhiimsan khasaaraha nafeed iyo midka kale ee soo gaaray ama dadkii ka shaqaynaya halkan ama dadkii kastamarka u ahaa oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. marka taa hadda khasaaro maaliyadeed wax weyn oo hadda muhiimad saas iima lahan. waxaa muhiim ii ah dad runtii aan aad u jecelahay oo ama ka mid ahaa dadkii ka shaqaynayay hoteelka ama dadkii macaamilka ahaa ayaa wax ku gaareen. intaas un baan xanuun fara badan nagu haysa, laakiin haddana dhihi mayno leyrkaan daminayna hoteelkaan xidhaynaa. hoteelo badan oo kalena sanada soo socda waa ka dhisaa Muqdisho insha Allah haddii alla idin. waayahay khasaaraha guud adigoo isku daraya dadkii macaamiisha ahaa ee halkan dhimashada iyo dhaawaca ku noqday iyo dadka ka shaqaynayaba intuu gaaraya? walaal horta dee warbixintaasoo saxa waxaa haya hay-adaha amniga oo ku shaqada lahaa. waxaa dhici karta intaan hoteelka gudihiisa ku aragnay inaan hayno ama laamiga ku dhimatay ama xabada meelo kale isaga dhaceen. marka warbixintaasoo saxa xoogaa ma raba inaan u yara gacan dhaafo hay-adaha amniga. marka hay-adaha amniga laga heli doona, ayaga shacabka la wadaagi doona haddii alla wadal ka raali noqdo. ugu dambeyntii fariintan maxaad ka baranaysaan marka haddii aan lahayd ammaanka hoteelka iyo isbedelada aad samaynaysaan? wallaahi dee horta dhacdo kaste nagu dhacda natiijada ka dhalatana aynan ahaan inaan nolosheenna ku weyno adeegun baan ka sii qaadaynaa. marna nama cabsi gelinayso, mana baqdin iyo niyad jab iyo toona nagu abuuri mayso. anigu waxaan ka fikiri jiray oon wakhtigayga intiisa badan geli jiray sidii dhaqaalaha dalkan loo kobci lahaa, sidii dhalinyarada dalkan joogta shaqo abuur loogu samayn lahaa, sidii fursadaha ganacsiga aadka u ballaaran ee ka jira looga faa'iidaysan lahaa. laakiin wixii shala dhacay waxay igu dhalisay inaanan daraasad ku samayn keliya sidii dhaqaalaha dalkan lagu kobci lahaa, sidii fursado shaqa lagu abuuri lahaa. laakiin waxaan ku dari doonaa aragtiyahayga ama daraasaadkii aan samayn jiray aan ku soo kordhi doonaa carruurtan qolada qaldaysa sidii looga qaban lahaa. carruurtan cagacaddaha ee qoriga ah ka hawadata ee dhowr iyo 10 sano ummaddan dadkan u afduubnaayeen sidii xal loogu heli lahaa. waa dhici kartaa inaan xalka ugu habboon ounan ahayn in uun xabad kaliya lagu xalliyo oo carruurtan ma garanaysaa naftooda la dhaafiyey. yani xuluul kale inay jiri kartaa laga yaaba. si kasta ha ahaatee konsaynkaas amni darrada dalka waa dareemi jiray, waana qabi jiray, laakiin mar walba wuu jiray. layskama xaqiri yani ma dafari kartid. yani waaqacaad ku nooshahay waa ku qasban tahay inaad recognize garaysood aqbasho waaqacaad ku nooshahay. laakiin wax badan daraasad hore uguma samayn sidii duruufaha amniga dalkan ka jira xal loogu heli lahaa. laakiin waxaan geli doonaa wakhtiga aan geliyey horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka wakhtiga aan geliyey wakhti lamid ahaan geli doonaa haddii allah wadalay ka raali noqdo. daraasaadna waan ka samayn doonaa sidii arrintaas xal waara loogu heli lahaa haddii allah wadalay ka raali noqdo.